waxaa halkan ku sugan oday cabdille horta magacaaga dhamaystiran cabdulle cabdi maxamuud cabdulle cabdi maxamuudow waxaa tahay odayaasha abwaaniinta Soomaaliyeed ee sida fiican loo yaqaano oo majaajilooyinka iyo riwaayadaha iyo silitaankooda bal waxaad sharaxaad kooban iga siisaa bal sida aad ku soo bilowday horta cabdifataaxow adigoo mahadsan waana ku salaamayaa marka ugu ku xigta marka xiga waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogto dalka iyo dibadda iyo meel walbo ay adduunyada ka joogaan ummadda Soomaaliyeed waa salaamaa marka xiga cabdifataax hal abuur aada i weydiisay hal abuur Soomaalidu waxyaabo badanay u taqaanaa kulley hal abuurka dadka qaar waxay u yaqaaniin ninka gabya qaar waxay u yaqaaniin meed kaloo asaguna heesameeya qaar waxay u yaqaaniin meed kaloo asaguna war inta meel ka soo qaada iska keena wax sheega naftiisu waa iska hal abuur waxaa kaloo jira oo iska hal abuura ninkii beertiisa abuurta xataa waa iska hal abuur waayo haaho haddii lunka lagu rido abuurka waa hal abuur amba hal haugu rido ama shan haugu ridee waa hal abuur marka hal abuurka adigu hadda aada sheegayso oodi su-aashay haddii uu ahaa mid ma-alifnimo anigu waxba ma-alifa miihi adiga mooga labadoo xaboo shiriba iyo wax saasa inaan iraah laakiin haddaad uga jeeday riwaayad sameeye iyadana maya ma sameeyo waase wax ka shaqeeya haddii ujeedadu macnaha aan ka raacna ay tahay riwaayadahaad dhigi jirta hal abuur waa ku ah sababtoo ah masraxa markii la tago dadku ii yimaadaan ujeedada aan ka hadlo wadada ma gefo wixii kaloo aan ku kororsan karana waa ku kororsada oo hal abuurnimadu halkaas waa soo geli kartaa isla masraxa naftiisa adoo jooga aada warkii leesku ogay war aan gefsanayn oo lamida ama kaba culus aada dhihi kartaa hal abuur waa naqon kartaa taas nafteeda oday cabdille markii kugu horeyso inta maslaxa timaadid oo wax jishid oo ama riwaayad ha noqoto ama majaajilo la samaynayo ha noqoto oo aada isku daydid inaad dad la hadashid oo madadaalisid ma xasuusan kartaa waqti ahayd nin yaha waa xusuusan karaa laakiin madadaaladaa kala jirtee midna waa mid adiga masrax la imaanayo midna waa mid geedaha hoostooda iyo dhalinyarada iyo haddii allaba kuuro iyo marka baaradka shaaha lagu cabaayo iyo sheekada ah wixii aada sheegta lagu qoslo waxyaabahaasay isugu jirtaa hal abuurnimada iyo masraxaad hadda adi weydiisay marka hadday masrax taahaa 1978 iigu horeysa anigoo masrax inta taga masraxna ma ahayn adiga xaafad uun kamida xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho xoogay barnaamij ahaan ligayno weliba makarafoon lahayn makarafoon la-aan xoogay dhalinyarada dad isdhex joogo waxaan ahayn ururkii dhalinyarada kacaanka Soomaaliyeed aan ahayn marka annaga waxay soo dhigayna marka boos layga siiyay oo labadaa eray dhex camal ah ay ahayd labadii erayaan meesha si alla ogyaha ku ira anoo markaan soo gelayo jilbaha ka jarayha oo baqayay gacmaha ka lululana warkii kaan ka bilaabi lahay maahe kow ku dhammaahaya kasoo bilaabay kabacdiyaan
haddana xagga kale ka bilaabo inta haddana ka bilaabo anoo dhabarku ay kala go-an yahaan ka baxayo masraxi iigu horeeyey. marka adigu markaas xisbigii dhalinyarada ku jiray Soomaaliya 78 1978 xubin xisbi maanan ahayn laakiin ururkii dhalinyarada xisbi waa ahaayeen laakiin xubin xisbi iyo dhalinyaro caadiyahay kala ahaayeen. dhalinyaradan kamid ahaa marka xaafad ku taala Xamar oo degmada Howlwadaag kamid oo la yiraahdo xaafada Xawataako ay ahayd. marka dhalinyaradaasaan kamid ahay. masraxuna masrax bacaad oo iska ahayo bacaad la isugu sheekeeyo halkaynaan iska bal awada aan wax isu dhigno camal oo saasaan ka soo qadno kadib aan tartamo galno. tartamadii aan galnay degmaday tagtay oo degmadii heer degma markay gaartay 4 xaafadood way ahayd degmadu. hadee adigu kulley nin dhalinyaraha to inaadan garanayna laga yaabaa. marka xaafada Xawataako xaafada Axmed Gurey Saqaawadiin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 4 xaafadooday ahayd. faanka nambarka koobaadaan ku qaadi jirna wax kalena ma hayno heesi ma hayne xagga sheekada iyo madadaalada daan dadka cagahooda kor u taagi jirna. marka halkaasaan maaragtay kasoo bilaabay. habeenkaas marka fariintii dadka aad gaarsiinayseen marka la hadlayseen dadka ama adinka dhaxdiina aad gaarsiinayseen dhalinyarada xisbiga ahayd maxay ahayd? waxaan aada uga xumahay inaad gadaal iyo celiso. ma aqaano sababtoo ah warkii aan iri xanuunkan ka qaaday waa aniga kule kaan ka bilaabayey maahana kow ku dhammaahayaan warka kasoo bilaabay. meelay u jeeday meelay ka jeeda ma aqaano waaba ku jira tag waa ku dhima lahay. xanuunkii qabtay xumadii waaba la ogaay. marka ma xusuusan karo hadda. si fiican marka markii aad si fiican jaanta u heshay inaad majaajilaystayaashii Soomaalida ka mid noqotay maxaa kuugu xigay arrintaas dhalinyaranimadii iyo xisbigii mataqaanaa majaajilooyinka sameynaysa marka laga soo tago talaabaqaadkii kale aad soo kadib waxay ku sii dhaweynaysaa ka qaybgalka fanka? waa su'aal wanaagsan Cabdifataaxo. waxa waaye isla markiiba waxaan samaysanay riwaayad hadda magaceeda aanan aada u xusuusan koox galeyr la yidhaaha la baxnay. riwaayadaas iyadaa ayaan samaysanay jilaabaan ka ahaa weliba waagaas habaraan ka metelayo waa xusuustaa. waxaan jirin gabdho Soomaaliyeed oo fanka saas uga qayb galay? maya gabdhuhu waa jireen laakiin waa xishooraya waayo gabdhuhu gabdho masrax u bisilna ma ahayn geli karana ma ahayn. marka habar aan ka metelay allahayga dhaafee barnaamijkaas isagaa waa wadwadno ayaamaan wadwadnay. tilaabqaadkaygii labaadoo ahaa waxaana noo tumayay oo muusigeysta noo ahaa kooxdii halgan ciidanka guulwadayaasha ummadda aan noo tumaysay. sidaas darteed ayay waxay yidhaahdeen waxaad haddii weydiinaan kasii hor dhacayaa ninkan odaga ee habarta metelay miyaha odayna ma isku dayi kartaa asaa idhi haa odagaaba iiga roonay habartaas ismarmaroojintaan iyo kolba maanta dhan garab xumoon ka yogyogeeyo sulug sheegoon war maxaa yidhi iraa odagaa ii dhaamo meeshiyaa imtixaan layga qaaday oo waxaa la kooxdeena kasoo qaybgal kooxdiyaan ka qaybgala halgan. kooxdaasaan ka mid noqday 79 waay markaan ka mid noqonayo bishii October. sanad kadib markii kooxda halgan ay qaadatay ayagaan la shaqay jiray ilaa burburkii xataa iyakaan la shaqayna laakiin shaqadaydu waxay u badnayd hobalada waa beri oon ula shaqay jira bareybad ahaan dadku badi inaa hobalada waa beri ahay ay moodayaan waa ahay laakiin heegan baa caadi ahaan uga tirsanay maya kooxda heegan hadda dhawaan ka mid ahaye halganaan ku halgan oo ciidanka guulwadayaasha ummadda ahaay. hadda se qaybtu ugu dambayso hadda markaan kolley 2 sano ka hor ka imaanaya kooxda heeganaan ka mid ahay
marka hobalada waa beri aan badi wax la dhigi jira waa garta marka barnaamijkaagii fanku uu dabcan iyo jilitaankaagii uu kobcay riwaayadihii aada dhigtay oo ugu horreeyo ka qayb gashay oo aada wax ka jishay markaad kusoo bidhay kooxihii waaweynaa ee soomaalida oo waddanka ka jiray maxaa ka xabsanaysaa waa su-aal wanaagsan laakiin midaa ka horeysay waxaa ka horreeyay horta sheeko la yidhaha wixii dhiig lahow ka caajiri jirtay oo waagii 82 dagaaladii balanballe iyo dugub iyo etoobiya kusoo qaadi jirtay sheeko aan ka sameynay oo sheekadaas iyadaa kollay sharaxaadeeda waxeedaasaan maaragtay adiga warwarkaan iska lahaaye soo jeedinteeda iyo kala hagiddeeda iyo qaabkaasa loo dhiga iyo waxaa iska lahay cabdisalaad qaarey oo aan xamar ku ogaay waxayna kamid ahayd 19 August oo ahayd maalinka ciidanka guuloodayaasha ummadda Soomaaliyeed la aas-aasay kamid ahayd wixii dhiig lahow kaca la dhihi jiray oo dagaalgala Soomaaliya kaca oo cadowga iska dhiciya taasaa ku xigtay markaan usoo noqdo riwaayadaha xaggooda taas waqtigeeda baan dabcan wax kaas weydiinaya intaadan marka taa dhigteen ku saabsan wixii dhiig lahow kaca waxaad ii sheegtay abwaankii sameeyey dadkii idin kala qayb galay oo fanaaniintii iyo jilayaashii maxaa ka xabsanaysaa wallaahi dad badan anaga igala qayb gala dadkii igala qayb galana hadda waxna waa nool yihiin waxna waa dhinteen sheekadaas oda cabdullaahi habar isniinaa dhigi jira oda cabdullaahi anigow ahay habar isniinana waxay ahayd allaha u naxariistee siraad diiriye yuusuf ay ahayd waana dhimatay 20 sano ka hor ay dhimatay marka dee dadkii la dhigaayo hoballadii halganay ah siraad tahliil oo iyaduna dhimatay horta haddii aan hadda dadkii sheeg adi tiraa kaan sheegaba waa dhintay kaan sheeg is-iraaba mid dhinto u badaha siraad tahliil oo dhimateen waa ka mid ba siraad tahliil oo dhimataa kamid ahayd cabdullaahi khasaara kamid ahaa oo isna dhintay maya waa nool yahay nolodaan ku ogaay maxamed cali liibaan in la yidhaahaa kamid ahaay axmed saciid caliyaa kamid ahaay barre maxamed fiidoobaa kamid ahaay war lama tiri karo hobalada halgan lama tiri karin oo adiga 60 gaarayeen oo inta tira koob ku bilaabo ma dhammaystiri karo marka in nool iyo in dhimataba waa la wada dhigaya muusigeesta ha noqoto haddii alla kuu ron yahay ma-alifiin iyo jilaa iyo dhammaan looma kala harin haddaad hoos ugu daadegtid wixii iyo sawirkii aad ku bixinayseen riwaayadaas iyo qaabkii aad u jilayseen oo aad dadka ku baraarujinayseen in waddanka la difaaco maxaa iiga tilmaami kadhaa bal adoo dadka u sawiraya si aad u jilayseen oo tusaale ahaan dadka waxaad tusayseen fariintaad u gudbinayseen fariintu qaabado badanay isugu jirtay qaab wuxuu taabanayay xisbigii maxamed siyaad waa garta qaybuna dagaalka ay taabanaysa sababtoo ah wixii dhiig lahow kaca islaantayda oo ile dadkii dagaalay galeen odageygana waa iska fadhiyaaho meel aadima waa ay ceebeesta kani iyadoo sida lahaan usoo gelaayo maxaa kugu dhacay xisbigayna iyadu kamid aheed iyadu xisbigayba kamid saylaha dadkii deriskoo dham waa bax waa la wada tegay xaa ku dhigay meeshaad fadhidada gaagaambinayso maxaad ii ceebaysane maa dagaalka aad maa dagaal aadkaaga maxuuyaha dagaalka dagaalku waxa waaye dagaalka waxaa lala dirinayaa cadow waa lala dirinayaa cadow waan la dagaalamaynaa cadow waana soo weeraray etoobiyaana soo weerartay waa la wada aaday dagaalaa loo kacay adigu gurigaad iska fadhida xaa kugu dhacay ilaah si fiican markaasaan lahay waa runtaa dagaalku wax la aado waayahay wixii dhiig lahow kacaana la yiri ay iigu daraysa saan lahay wixii dhiig lahaba kaceene cidda yaa u dhiig badan ciddayna heer cabdullaah yaa u dhiig badan say lahayd yaa u dhiig badan maahna nin rag ahaatee shaqo tag oo meesha ka kac haa markaasaan lahay wixii dhiig badanaa tegaayo inaan wax dirnay tegee
itus ishaad si aad u fiirso baldiga kugu isaan feerahaasaan la abow waxaa indhaheeda dhiig ku jira arfarteeranaday habar isniinoy cidda adaa u dhiig badane orodoo inta baxdid dagaalka aad soo dagaalan wixii dhiig low kacaa heel la yiriye adaa sheegaa hadde maya ma aha saas maaha raggaa tega raggiyaa bax war aniga rag haygu dirqana haddaa dagaalka aadaysa aad dhiigankaa wixii dhiig low kaca mii tiri cidda muugu dhiig roonta socee dagaalka markaase waxay lahaaday yaa waa tegee dagaalkaa tegee dembiyaad dhex taaganta dembiyaad ku jirta naasaan dembi ugu jiraa jaalle kaaya naa jaallahan haygu diline maxaad aniga iga jaallaysa ahaan lahay ma xisbigaad kamid tahaan lahay yaa i xil saara anigu kaligay inaan dagaalka aado ase waxaan xisbigan ku jirna waa u dhimanaynaa waana tegaysa waa inaad baxdo intaas markay joogtaan la bis waaye isniinoy dagaalka saddexaa looga qayb galaa af idin iyo anfuc af soomaali weynaa kula aadanoo dhaco ku foojaba sida loo lahay ku jabe amxaaro idina ciidamada qalabka sidaa kula aada anfaco adaa cidda waxu haaye waxaad haysee lacag hay keen lacagay ii dhiibaysa lacagtiyaan qaadaayo waa baxaaya aal yaraan meelaha inta kusoo baashaalo kusoo qayilaan iska soo naqaayo anoo madaxyo sida amxaaro madaxys amxaaraan sidaa leh aan soo naqaayo say lehed war waa maxay dagaalkiyaan tegay markaasaa la isku dhac xabadda la isku qawdnaas qawdi yeertay amxaaradi markay naqatay ku koob ka kuda iyo ku koofi ka kuda iyo ku iska kuda iyo kuya isniinu inta iri kuda ewel waa ka cabsaayo waxaan islahay meelaan isniina ku ogeyn inta ku dhimata amaad lugta ku taagtaahe ee aan raacdeeye ee raacdayna ee raacdeeye ee xabadeeyey ee adisabaabo meel agteera angeynaan aansir waxaan ilkaa haatin asaan gadaal gadoon uga soo eri oo hadda madxahaanaan sidaa madaxyadan marka deriskana u qaybi meelahana iisu sur taariikhay ee naqaayaane nin soo halgamaanahe madaxyana ma sidee anaa iska dhigow haaya waa qayaano ka qayaano marka hore lacagta la khiyay haddana iyaduna way qayaanayso dagaalkay ii diraysa iyo xisbiga naftiisa dagaal geli mahayna dadkau diraayo marka xaggana cadowgana waa taabanayna xagga kale ma xisbigana waa taabahayna qaabada leysku hayay ka hadlaysa marka okay waaya aad baan ufahmay marka laga gudba riwaayadahaas ama riwaayadda laga gudbaa tiri waxay ahayd riwaayad wixdhig loo kaca la yidhahdo riwaayadihii kale ee taariikhda galay oo aad ka qayb qaadatay oo aad soran kartid kuwaasi kaaga sii dambeeyeen maxaa ka garan kartaa waxay ahaayeen iyo taariikhdoodii niyahow horta aqli ma jiro wuxuu yidhi ayaanta waa aqli beelo shala goor oo raxgaab ahaan isbitaal u kacmaaga asaan aada afgooyo intahaan kala qaada anoo jooga afleyrsho yiri afleyrsho suuqi boondheeraa la dhehi jira abuus xumaan inta seexday isqambuus inaad u taqaanaan u malayna dabcan waa suuragal aan inta seexdaan abley dheer inta siibdaan ku urgaaxa agteyda ayaa kaanu qaba ah taas waxaa ka horeysa nin saqiirana mehiyo sanadkan sabdiyaa ii siiyey kooba suufi raayana mehiyo inta suuqa dhex aada 3 jeer ku wareega dadka soo u shameel ku suraaya dadka soo safahaya waxa siiya dhahay walow waxaa isulaaqa waxaan soo qabayo dhamaa sir jawlaygaga qaatee ilaa deyna laygaga dhamaysta dukaan yaro aan lahaa horta aqli badan ma jiro taariikh lama wada xusuusan karo anoo su-aasho usoo noqonaya horta barnaamijya waa wax ka dhigo baadinimaan lahayna ag joogtaan wax ka dhigayo uu lahaa cali barre xuseen oo anan geeri ku maqal waxaa ku igu sii xigay barnaamij isagana 84 ahaa oo show aan modern dance la dhihi jiray oo ay lahayd
saad cali warsame waxaa iigu sii xiga riwaayad kaloo iyaguna labay ahaayeen ka joog adiga maaheer la yiraahdo oo bare maxamed fiidow lahay oo 85 ah 1985 oo ay ku jirtay 64 ay jirtaa ilma kaalena waa raabtaa 64 ay jirtaa inta tira waryaa waa naagaan isxaan u falay oo islaan iska indhala oo wareersanaan lahay indhaha loo soo fiiqa xoogay iska badar noolaan ahaa aan ku metelahaa markaasay leeda oo ubadka waxay iga joojiyay ileen gabow ma ahee 64 baa sanadka iyala jirtee amba soo uma baahni in dibtayda la eego si fiican markaasaan lahay 64 adoo jira beelsadaan ilma kaaga baari lahay maan dhulkaan ilaahay macdan dahab uga baar markaas baraambur yaro ah saasoo adii gashaye adna godadlo godbaan kugu ridahayaa samaanaad igu goosaha how 64 ay jirtaa ilma kaalena waa raabtaa 64 ay jirtaa ilma kaalena waa raabtaa aan lahay waa tahay riwaayadihii badnaa ii tirisay waxaan ka xasuustaa waxaad tiri riwaayad la yiraahdo baadiinaan lahayn bay ag joogtaa riwaayadaas maxaa ku cabiraysaan baadiinimaan lahayn bay ag joogtaa waxaa lagu cabira waa cabiradu waa badan yihiin horta hal cabir ha qaadanin dabcan waxa la ujeedooyinkan inay ujeedooyinka laakiin markii muuqaalkeedu wuxuu ahaa ambase ahaay ambase aheed gabar ka maqan actarka iyo atariishadiioo maqan oo ka maqan ninka actarka ahay kabacdina nin kale oon shaqo ku lahayn oon cidi ku ogeyn ayaa maaragtay inuu guursado rabay ag joogtaayoo yar lagu qalqaalinaya marka baadiyo nimaan lahaynay ag joogtaahay ahayd waxaa haddaan dee sii cabirnana waa badanaysaayo luga badanay meelo badan la gelaysaa oona hadda ka hadlay waa garta marka riwaayadaas iyada kala qayb galayay waad garan ka dhaa raggii abwaaniintii iyo fanaaniintii la yaqaanay iyo kuwii Soomaaliyeed Allah wada xandis ku dhintay intii noolba intii nooleed iyo intii dhimata waataan hore kuugu sheegay kooxda halgana maaragtay dhigaysay ayaa ka shaqeeyay علي معالي عمر عدوين كم ذهب جبا أو عبد القادر جبا نفتي سمركز هالجنو وحكمت لي إبراهيم عبد المؤمن أدي ألا بكورون يا هاي أنا جاي كان أدي طيا سهاد يكو أك فردية أما كو أك فرقة أما كو أك تاجن أما كو أك جوجا إيه أنت كلاتين لدي جاي سبب موسيقى استان نقطة نوع والبوهان نقطة ما كشري وقتي riwaayadihii badnaa waad wax ka tashay riwaayadaas leedahay taariikh iyo xasuus gaar ah bay kugu reebtay marka sidii wax loo jilayay iyo qaabkii madadaalada iyo fariintii aad gudbinayseen iyo marka waxaad isku fiirsay iyo dadkii jilayay iyo fanaaniintii ka qayb galaysay aad eegtid atrayd taasi waxay lahayd xasuus gaar ah oo la taaban karo oran kartid saan عبد الفتاح وافي عنتهاي وسؤال وناكسن لكن وحاد يرمودا ددك كقيب جلا iyo waxaas iyo tii kugu fiicneed iyo su'aashaas iyada horta riwaayadan dhigayo ila fiicneen maba jirinba tuuti waxaan dhigayo dhan wax ila fiicneen sababtoo hadaysan ii fiicneen maba dhigeen لكن وكوسك أنا ورينا هاي طبعا ما كان برنامج يعني واحد سير هذا برنامج شبل بقوف عن برنامج هذا ويقول على تسوق عليه أنا وحيد أنا أقرب بينه وبين مثلا ويسكر في عين مركا كوا حسوسكم ما هو معقول إن هذا استيرار وايد ساسيد كل أنا وحق غسل كان وبضناية وايد وغسل بضنات هدي أن أول بكفير شيء إلى تنوى غسل بضنات بلايين أهد مشاكل كي جعيل كي أهي والله دقاي كون سقال بقول تضوبا سديتن إيوه سديت بالله تضوبا بالله وبيس سديتن تضوبا بالله بش مارس وليبا
cabdi waxaan rabaa inaan bal wax iga sii tilmaantid riwaayadda mashaakilka jacaylka adugu inta badan majaajilaystaad ahayd riwaayadahana ku jilaysay bal adiga qaybtaadii sidaa wax u jilaysay iyo ciddii kaala qayb qaadanaysay bal wax iga tilmaan waa su-aal fiican anigu sidayda waxaan ahay nin reer baadiya oo labadiisa go iska wata oo walaalkiis oo lacag le u yimid gurigana wax uga nool ninkaas Siciid Khaliif Caliya la dhihi jiray awkuukaa ka mid ahay oo asaguna guriga Allah u naxariistay ka shaqaynayay waxaa ka mid ahay Maki Xaaji Banaadir waxaa ka mid ahay haddii alla kuu roonyo dee metelayo cabdiqaadir muxuu ahay ina maxamed cismaan ina hay dabcan iyo sahruuja sahra cabdiqaadir marka waa riwaayadii sahra ugu horeysa cabdiqaadir sahruuja si fiican masrax ay soo korto ay ahayd marka waxaan ka muujin karaa gabadhaa laga soo doonayay Maki wiilkiisaa ka soo doonayay oo malaaq ku metelayay waa u imaahayay Siciidna waxaa la dhihi jiray muudeeyow waxaan kaa rabaa inaad maaragtay gabadhtaada isiiso oo gabadhta xaggeed geyhe gabadha waxa waaye waxaan ku mahrihaa oon u rabaa wiilkayga ilaa gabadhay wiilku waa isjecel yihiin markaasuu wuxuu le war naga tag gabadhaadu ma gayo wiilkaaga xunkaahe igala tag odhaa waxaas war saas ha dhehe war u kaadi war fiya ou lahay marka fiya iiga bax guriga fiya waa bax si fiican awkuukuna Allah u naxariista fiya ou lahaa intaas markay dhahaan aniga iyo Maki saaxiibaan yar iska ahayn oo jartaan isla dheeli jirnay anigu kuma talax tegine markii aw irida ka baxaan waxaan idhi muudeeyo ilaa waxa ka buuran waa ceebniya wallahi ka dejiye baa ku tiri ninkii gabadha loo diiday banaanka loo saaray maya kii gabadha diiday gabadha adeeraan u ahay anigu si fiican gabadha lagaaga soo geed fadhiis oo lagaaga soo guri galay asaad fiya tiri intaad u fiyahay faras waa ku haraatay seehaan lahay ma gabadhayda ugaya geedka xungaada margeetaan cafaafu shalo waxay gasha ma leh igaarkaas qoortu intaas jeedo gabadha inaad ku darataa lagu qaata adiga naftaada fiya maya bariis ma ka cuni kartaa gurigaana wala asan la bariiska ka cuni meena bariiska ha qalale fiya iga bax guriga baadiga naftiini asan leeyahay waa kaaga tagahay naga tag asaa ku fiya la asan leeyahay haye hadda adiga soo daba dhaqaaqdo halka adyaalka madoobaan ku kala bixiha markaas uu leeyahay waa fiya asan inta soo noqdaan la madiinaba fiyaha idinku geedayahu idab malhidiina goortaasaan ka tegaaya oo guriga ka baxay guriga ka baxay aakhirka hadda waxay ku dhamaahaysay oo u taganaysay gabadhiyo sakaraad oo bisteeda maxaa kugu dhacay inuu yiraahdo walaalkay muudeey oo ay tiraahdo aniga jaceelaa ahaaya ina oo malaaqaan raba waasa horta waa kuu soo kala dhaafee marka aan dhahaayo waxa kaa buuran waa ceeb allaha kaa dejiye ee aan intaas u sheegay kabacdi aan Maki is arkaynaa oo malaaq ku metelaya waxaan ku heshiihaynaa awkuuku habartiis inuu guursado oo fiya haddii uu uga aarsado islaantiyaan qalqaaliha habartii oday dhashay awkuuku dhashay asaan laha meeqa sano oo haddii alla kutubay war kutubay ma nabada kutubay ma fiicanta nabad waaya horta kutubay ma lagu yiraa marka hore
الله إله سيد الجوير كتبه وكتب قبل كتبه ورن كتبه وكسلام كتبه ورن كتبه محاسة كتبه وكسلام كتبه وخير نبض وافي عن كتبه وراجر كتبه وركجرا وحويا كتبه أنا كل شيء كتبه ما كل شيء كرا كتبه وأي شيء كرتا كتبه إنما كربا كتبه إنك كربنا كتبه أدو كربا كتبه أنا وصادر كتبه ساجر كتبه سايكولا تاي كتبه markaas ay laheeday hadda waa garteen ninku meeqa sano u jira asaan lahay an ma aqaano waxa uu jiree horta da'diisa dib inaan ka weydiiya ma ogiye ma ogi aniga wiilkayga aan aroosi lahay sidaas darteed ma rabo inaan hadda anigu guursado asaan la intaad naf islaameed meelay leetaada meelayso baayada lafteed ku bal ninka ay tusayla ninka naftiisiya aan keenayo allah soobax oo malaaq iyo waran nabad way maroonta ahaa kutubay waa u tagay xabad ma diidanay xabadna ma ogol inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wax ma diidano nimahan waa rabaahay ku tiri waxna ma ogolo oo malaaqo waa la murmay horta meeqa sana jirtaa ilaa iyadu 35 aan jiray soo tiri azifa oo malaaqo meeqa sana jirtaa 7 a'uudu billahi min hay gudhene 30 jir waaye 37 jirtaa macni numberka qaada dhahaysa ha ku dheelin iskana jir aan lahayo aljar waran gadaashanya waa lagu duugan yahay oo yaa ku duugan soona meenaatimiya asaan lahay waaba qarxi rabtaa qaraxaas waaga asaan sheegna allah naga haayo islaantiyaa ku jirta waa soo baxe aan lahay kutubay habar kutubay hadhihin dumaashi kutubay sanama dumaashiyaan dhihi kara islaantaas dhamad dumaashi kutubeeyey dumaashi soo laheed وقف بيشنا هادو ما سمية أسيقيا بوحي هذا وابا أددقه قروينا قير كتير بدنا كتبي أدنا اسكو ما تال دو قير عنات هاي أسنا قرولي وحدي بانا ما لها اسكو سو دوادا اسو إمادا شاكيستا اسفهمة وحسو الشاقة وحسو شاكتان خيرك صوبها أنا يقولنا ويسك سيتجا أو ملاك لهاي وما تنتا صاد سوق كأنتي إسكما جوك تدو جروجا هي أمان جوجا بما دوا إسكما سو دوا عادي سيدا سانوجا تجاي وأنا بحاي كبعدي ويلكي هي جبرتي الله يسول أنا أو ملاكان ربا سفع أنا أو ملاكان ربا مركي ترى هذا مودي أو ولالك يا وحوليه أنا أو ملاك هدي لوايا كورن واردما ما راح يقدمان أصلا لا حتى دما ما راح إن أو ملاك هدي لوايا صار نجى واردما حتى دما لا هي قدني قبرت إن أو ملاك كين أصلا ما حد يقدر لي هذا دما آخرنا هداف هدي لسوا إن أو ملاك نوك بيرنا وجمع بحنا من هي هذا هلي وين كور مايا ولا هذينا ما تديد كرا كورتاسان كل شيء بايا لا هو أطبعين أنتي ديداية إيجاركو ميسكو أمبورا أطبعين أنتي ديداية إيجاركو ميسكو أمبورا إسكو أمبور مركا واحد ليرا فعلا يا رؤوس الأمو إسكو طبوشانو أديك محاركا إيو أديك باهلكا أنا إيو وحيابها يريركا أقول جرا عصبنا ما أقول جرتا marka wiilka mamnuuca saad moodaa adigu ba waadigi diidi jira mid kale wiligeed lama arag gabar iyadii wax loo doonaaye shala ceebtaad nagu dhigta ma arag yaa kuse kula doona aday ila doona adiga ila doonaya واجد أدا إلى الدنيا كلها أدا إلى الدنيا أنا قال ما كل الدنيا إله هاي كادبر لكن أوكوكو الله نحرسته adigaana wayla doonaysaa aniga ha allah hay allah awleey kabacdi waa kula raadaynaahe marka tuugmada naga badiyo
oo aad idin bariyo laakiin xaadheha waxaan lahaa gabartiisii heshala wiilkiisii adaa maaragtay gabadhaada wiilkiisii aan leeha asaan laha gabadhiisii adaa diida qaabkaad ku tegi lahaad xooya weji kuma yaal meesha weji meesha kuuma yaala saa la yeela saan yeelaahe oo kuku allah u naxariista waxuu soo jeedinaya waxaa dhehe awow milaaqow minanka malaay ma soo moodi karaa awow milaaqow minanka malaay ma soo moodi karaa awow milaaq may asaan la awow hadhihe waryaa ma mukulaalaata awow milaaqow minanka malaay ma soo moodi karaa awow milaaqow minanka malaay ma soo moodi saasaad lehe hayahana kaxeeya saasaan ku baxayn waa ka horboodaaho malaaq ayaan u tegaaho waxaan leeha waa lagugu soo socdaa malaaq ma taqaan ma dhinta waa kaa dhiga waaweyn yahay maxaa jira asaan leha waa lagu soo socdaa oo maxaa layga soo doonaa asaga iyo owkuuku oo gadaal uga aanburan soo socda waxay iga rabaan asaan lahay waxay kaa rabaan wiilka intaas maqleho boodbooda asoo leeyahay wala farjabaa wiilku xaggaad ku carara markaasuu ira adiga markay yimaadiin lamadooda bes fadiisha ii gaabi waa fadiisha iga gaabi asaa nalalkaanba damiha leyrta ise xagaygaba qaado dhac waa ka tegaayey markaan ka tago habar kutubeeya uur lahaan is arkaynay haye xaa kugu dhacay haye iyo waran xaa kugu dhac malaria maa ku cuntay maye malaaq iyaan suuqaan u socda kasoo adeegaan uuru leeha yaa ma uuraad u leedaha ardada oo awkuukuna waa aroosiha ad laheed aneetayda meelay ma idhihino ardad ha aaminina ardadoo dad ha aaminina mahay igaarkeedii ka aroosi laheeday iyadii iska aroose array bal arka adduunyada haddana waa mashaakilka jacaylka taas mashaakilka waa tahay riwaayado badan baad ii sheegtay dabcan inaad ka qayb gashay oo aada jilayaashooda ka mid ahay riwaayadahaas kooxdii halgan oo adigu aad ka mid ahay abwaaniintii midhaha idiin samayn jirtay oo riwaayadaha diyaarin jirtay oo isku dubaridi jirtay kuwa may ahay aniga lama soo koobi karo horta mashaakilka jacaylka yar reer afgooya haalaayo magaciisu uu iga maqan yahay waa ka xumahay riwaayadahan kaloon kuu soo sheegana dee cali barre xuseena baa taasna lahay maaya kibirka beertaa jira oo axmede cabdigaashaan uu lahaa waxaa jiray sharixii la tumayay sheekaa ka dambayso cali bin cali lahaa waxaa jira fikir iyo farax jaceylo uu lahaa nin la yiraa caynba cayn waxaa jiray hadee barnaamijyadu waa tiro badan yihiin runaa reerka uroon iyo haddii ishan u yar ha ii sheegin iyo oo axmede cabdigaashaan uu lahaa ayaa jiray waa badnaayeen riwaayaduhu dadka sameeya ma-alifiinta waa tiro badan yihiin waxaa kamid ah ayaa u wanqalay waktiga oo yuusuf maxamed muumin uu lahaa haddee ma wada xusuuso karo hadda ka joog adiga maahe a kamid aheed iyo beenay raadkaa raacda kugu maqano ou lahaa barre maxamed fiidow oo hobolada waaberi ay dhigaayeen ayaa jiray intaas riwaayadahaas iyo wax kaloo iga sii maqanoona hadda wada xusuuso karin ilaa caqlimaha ma yaal waa kuu sheegay waxaa kamid ahay adoo iga raaliya damac adduun oo nin cabdi yuusuf hurdaaye la yiraa uu sameeyey ayaa kamid ahayd iyaduna oo aada iyo aada u dheereed oo riwaayadii ugu socodka badneed aheed oo bil iyo 15 casho markaan dhigayna annaga naftina xanuuntoon iska joojinay daasheen aa kamid ahayd waa tahay riwaayadahaas marka gobolladii aad ku dhigteen iyo meelihii aad ku qabateen maxaad iga sheegi kartaa national theatre waa ka dhignay gobolladana waa ka dhignay oo waxaa kamida gobolada bari waqooyi koonfur
haddii alla gooyo gobolada dhexe meel walba marka bari iyo aan ku leehayo waqooyi qasab in gobolada dhexe la marayo waayo jid kaleba male marka waa kasoo wada dhigno oo ka dhigi jirteen wax badan baad runtii ii tilmaantay wax badan oo kaloo aad ka xasuusanaysid waa jiraan riwaayadaha marka abwaaniintu sameynayaan ama kooxdina lagu wargeliyo in qorshahan la sameynayo jilid la rabo waqti intee leeg baad ku qaadan jirtay inaad hees in la sameeyo riwaayad dhammaystiran oo jilideedii waxay la dhamaystiro intaan loo soo gudbin bulshada sababtoo ka hor waxa la sameeyaa isku day iyo jilitaan iyo diyaarin iyo matalid waxaa fiicnaa leh taas mu'allifiinta inaad weydiiso riwaayadaha sameeya laakiin jilayaashiina soo lama xifdisiin jirin jilayaasha waxaa la yidhaha ta'liif iyo taxfiid marka hore si fiican ta'liif waa dadka soo sameeyo waa ninka sameeya mulaxan waa kan codka u dhisa dabcan taxfiid waa kuwa ka xafida iyo annagoo xafidayna ka bacdi qaybta koomikada qaybta odayaasha qaybta dhexgalka marka ta'liif iyo taxfiid dabcan marka tiini ii sheegtay oo kale marka ay abwaanku sameeyo kan riwaayad oo soo diyaariyo miraheedii iyo laxanadii hawsheedii la soo dhameystiro inta aan loo bandhigin bulshada jilayaashiinii iyo fanaaniintii isku imaatin baad sameynaysaan aad riwaayada ku jilaysaan waa sax waqti intee leeg oo kale aad samayn jirteen wallahi waa adiga niyahow xagga jilitaanka hadday noqoto ninba si oo wax u xafidi jira aniga xafidaadu iguma dheeraa jirin anigu waxaan u badnaay inaan riwaayada guud ahaan maalin laga sheekeeyo sheekadaas aan qabsado qaybtaan ku leehay dhac aan qorto markaan qortona hal maalin oo la yiraahdo waa is arkaysiin intaasaana isdhaysiin saana isdhaysiin maalinka xigana national theatre uu yahayba waa maalinkan masraxa koraayo oo tagaysid meesha daal dambe iima yaal aniga waayo masraxaasna waa ka adkahay shacabna waa lahay oo aad iyo aad raalli anuga ahay iyakuna raalli iga ahay marka mawduucaas ma gafayn sidaan meesha ku tagaana u dhigayay cawadaas laakiin wixii aan dhigo aan cawayaasha dambena dhigi jira sababtoo ah cawada waxaa tustaameen dambe haddaad ka bedesho waa ibas waatay marka riwaayadii hore Soomaalida iyo dawladnimadii intay jirtay iyo sidii qaranku soo shaqeynayay iyo sidii fanku ahaa aan ka soo gudub burbur baa dhacay riwaayado badan oo aad sameysteen oo aad iyo matqaana majaajilooyin qosol badan oo aad sameysteen waxaad curisay oo aad sameysay oo aad dadku madadaalisay niyahow cabdifataaxow riwaayad lama dhihi karo wixii burburka ka dambeeyay marka loo eego wixii aad sameyn jirtay waxaase la dhihi karaa tusaalooyin iyo sheekooyin iyo barnaamijyo oo adiga musalsal ah si fiican marka run ahaantii anigu muddaan iska nasaayo waxaas maba dhex geli jirin laakiin maraan kusoo biiray idaacada Shabeelle ee Muqdisho ku taala ayaan adiga xooga sheekooyina iyo saas ahaan wax ka metelay qaar kala sameeyay qaarna anaa sameeyay laakiin dadku inaa anigu sameeyay u qabaan hadda nabad la-aan waa nolol la-aan sheeke la yiraahdo waxaa iska lahay Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa lahaa oo agaasimaha raadiyo kulmiya ah hadda waxaa kaloo ku xigtay kala mashhuurta sheeke la yiraahdo oo iyada nafteedu muddo socotay oo Shabeelle ka bixi jirtay waxaa kaloo ku xigtay sheeke la yiraahdo malaamiley oo iyaduna ka bixi jirtay raadiyo Shabeelle waxaa kaloo ku xigtay isuma quurto oo kamid ahayd sheekooyinkii raadiyo Shabeelle ka bixi jiray oo iyadoo socota sheekadaasu bishii 7 bishii 6 7deedii 2009 ayaa waxaa la dilay agaasimihii
idaacada shabeelle allahu naxariisto maxamed mukhtaar maxamed hiraabe sidaas darteed markaasaa aniga idaacadaas iigu dambaysay muddaan iska jooga dadkiis casilaan ka mid ahaay inaysaan waxba wedi karin dadkii iska casilaan ka mid ahaay kadib raadiyo muqdisho ayaan la shaqeeyey muddo sheeko layra baadi kala maqan ayaan maaragta halkaas kusoo bandhigayay oo ay ka qayb gelayeen shaqaalaha idaacada raadiyo muqdisho hadda baadi kala maqan waxay aada u dilaysa nimankan dadkii iska dila nimanka iska dilayaasha ah nimanka runta aan jeclayn nimankan aqoonta jeclayn nimanka maaragtay aqoonyahan cilmi adiga ama diini ama maadiya aan jeclayn kii runta u sheega aan jeclayn qofkii socda hadduusan mabda-ooda raacsanayn aan jeclayn ee haddana kule annagaa islaama waxay islaam yihiin lama arko islaamnima saas uma taal masaajidka dadka ku dilay banaankii dadka ku dilay qof walbaba dilay ilmihi dilay baabi'iyey waxaas markaan u adkaysa waayana aakhirki waa kasoo tegay bishii 9aad 2010 ayaan Uganda dalaq kasoo iri waata barnaamijkeena soo gabagabaysanaynaa oday cabdille muqdisho burburkii badankiisa waa ku sugnay waxyaabihii kuugu dhib badnaa kula soo gudboonaaday ama ishaadu ha qabato ama adiga shakhsi ahaan kugu yimaadeen ama bulshada kale oo Soomaaliyeed ka daqanaysa ku yimaadeen oo aad oran kartid waxaas ugu dhib badnaa oo aad dareemi kartid waa lagu yaqaan waana lagu soo kooba niman shaxaad ugu imid waaga shaxaadka markaan ugu imiday wuxuu yiri wax ma haayo bal galabta ii soo laab si fiican 10 saac ima waa baxay meela iska aado meelihii soo warwareegayo wax soo mehelino galabkii aan idin ku laaba ilaa bal xoogay xamad ee qabiil balaaya ka jirtay waa intii dhibaato jirtay mid malaha jufadeyda aniga xagga qabiilka hadii la fahmilahaan ee xiga awalaalkiis dilay intaan aniga ku maqnay magaalada oo gurigaaga waxa joogtay gurigayga ma haysa xadoona dabcan inta kala maqnay anigana 10 saac sagayaan hunguri ka rabaa oo u socdaa okay horta ninku yow reer hebelada Cabdullah inta iyagu imaaha 10 saac xaiga galow yiri war ma qabato war ninka asaas ma yeelayo iro qorayo diyaar la yaana badar doona oo isaga u socota galabtii sagiya u soo socda hawaa soo baxayo waa socdaayo markaan ku soo dhawahay oo jiirada soo galay oo yiri waa kan anoo saaxibka ayaan bilaabay حانس لها العقية خير وكل سجاه موقته أضيع صو عرريو ملها نمكن قرينا كرو وقعد أن قرق قبو إنه وتي موقته أوكي وحن له إيمان كأنك قات كان كورتا يمو كجوج ماشي وخصوص عضو أذكلا يقبت أسير إن تعاتك حرك كلها سور محمد كوشاب أنا هبلا ولا الكيس دي هبلا كعرر ماشي والله ها قلنا قداران وقدوم مركا كيو العلاية حبدنا كروشتي أنا كون جار أن قنبضي بارك دولك كل دفتي كعرري مالك الأوضي إسيك حيو صبح كومد مدوبة وضد كسوس على قرية توجد جيرا يرقلي أنا وحن كقلا مالك يرو خبروا موفكو دبتو أنا اسكو سوحر أكتيدي مرة لبدي مدوبة يقول والله بالله سفضوضه ونوقف كذا يا يا وحاول نوقف بحث يا وكبحث أنا اسم لا يا بساكا كلاي وطان خبر تجاوة يا وحبي هوك صوصي أنا الباب كيان اسك صوفر هيا وكما صار وأنا وكجنباي توك يا توك وطلع بد قريه إذا تكملها قط إلى الرعد قبل هبر كلو ديكس سوقات تقوى كيجا قاطع أيام دوّد هتي الجلاس كيجا حد هذيك نفط ما هذا نتو كلا سوق عرفتي تريس ما قصحنا وقبا ما تقر أنا جي سكرات كهاي عررة هاي تاسع يقطفها وقتي بحر فرين تلو قدام بس دك سومالي على قيب سنة تسيل الله هلا وحكاني دك كانوا قبحان
وقبل soomaaliya midnimo cadaalad sinaan qabyaalad oo la iska dhaafo midnimada ummadda soomaaliyeed oo muqadaska ah oo la raaco lagu dhaqmo geed hoostiisa la tegi jira hadda kollay geed hoostii tegi maysiin haddii gogol aad isugu tagtaan midnimada ku dadaala midnimo iyo guul iyo barwaaqo